waftigan oo noo yimid oo ku yimid martiqaad madaxweynaha dowladdaanka u fidiyay hadda kadibna sii socon doona waxaanu ku lafaguray iskaashi dhan walba xagga ammaanka xagga istaageersiga iyo iskaashiga waxbarashada ganacsiga wada socodka iyo isdhexgelinta bulshada intaba in labada deegaanba ama labada dowladoodba ay ka wada shaqeeyaan xasiloonida iyadoo dhammaanba waajibaadka naga saaran xasiloonida bariga Afrika aan asaas u nahay haddana gaar ahaan inaanu gobolkaas nabadgelyo darrada ka jirta ama xaaladaha nabadgelyo darrada keeni kara intaan isla gorfayno si joogto ah hadda kadib uga shaqeyno xiriirkuna sidan uu ka gedsanaado oo degmooyinka iyo gobolada xuduudda leh ay waqtiyo gaar ah iyagu ballamaan oo xidhiidhaan nabadgelyadana guud ahaan looga wada shaqeeyo talabaad waxa la wixii nabadgelyo darrada keeni kara labada deegaan baynaanu ka wada hadalno oo la iska kaashado waftiga noo yimidna muhiimadda u yimaadeen waxay ahayd iskaashi guud inaanu samayno si deegaanada kala deriska aanu iskaashi dhan walba u leeyahay xagga ammaanka iyo xagga ganacsiga iyo xagga waxbarashada intaba sidaas oo kale in ayagana albaab furan uu noqdo hadda kadibna qorshayaashan halkan ku wada qaadano fulintooda iyo waqtigeedaba laga ballamo lana dareemo dadkan inay isku dad yihiin oo ayna kala maarmin oo ayna nabadda u kala maarmin ganacsiga u kala maarmin waxbarashada u kala maarmin arrimaha bulshada u kala maarmin nooc kasta ay noqotoba dadka halka degan dad kala maarma ma ayaha waxa kale oo ballan qaadaynaa in xuduudda laga sameeyo waxyaalo resource ay dadku ka wada faa'iideystaan hadday iskooladii noqoto ganacsiga hadday noqoto travelkii iyo socdaalkii laamaha hadday noqoto inaanu xuduudda aanu dhisno oo dadku ka wada faa'iideystaan runtii wuxuu ahaa arrin kulan taariikhi ah oo dowladda koonfur galbeed iyo dowladda deegaanka Soomaalida kulamadii ugu horeeyay uguna muhiimsanaa oo si dhab ah looga hadlay loona lafaguray taariikhda dadka walaalaha ah ee koonfur galbeed iyo dowlad deegaanka Soomaalida ka dhaxaysa xuduudda dheer ee ka dhaxaysa runtii in si wada jir ah loogala halgamo loogala dagaalamo nabadiidka argagixisada runtii saameynta weyn Soomaaliya oo dhan ku yeelatay khaasatan dowladda koonfur galbeed deegaanadeeda ku yeelatay waxyaabaha aan isla qaadanay waxaa ka mid ahaa dowladda koonfur galbeed oo runtii bilow ah lana halgamaysa runtii waxa weeye xaaladaha amni darteed waxa weeye waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo runtii shaqo la'aan markay ku dhacdo waxbarasho la'aan ay ku dhacdo iyaga laftigoodu inuu cadowgu adeegsado oo la isticmaalo noqon lahayd marka sidii aan ugu heli lahayn fursado waxbarasho oo ay jaamacadaha halkan ay wax ku bartaan runtii arrimaha aan ka wada hadalay oo aadka muhiimka u ahaa isfahankan aan ka gaarnay baa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah arrimaha ganacsiga runtii ganacsiga waxa weeye labada deegaan oo dadkeedu wax badan ka dhaxeeyo waxa weeye wixii xaggan jirana in xagga ay u baahan tahayna laga faa'iideysto kuwa xagga jirana in laga faa'iideysto waxaa kale oo muhiim ah inaan wixii khibrad ah way aragnimo ah oo xafiisyadan dheer yihiin xafiisyadanada xafiis walba xafiiska ka soo horjeeda maadaama dib u dhis aan ku jirno wixii khibrada ah wixii dib u dhis ah dalka iyo hawshiisa inaan iska kaashano